kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 9ka bisha 6 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay Xaaf iyo Ahlu Sunna iyo Sheekh Shaakir oo balanta uga baxay madaxweynaha Galmudug faahfaahin laga helay dil Muqdisho loogu geystay sargaal ka tirsanaa waaxda dambi baarista CID-da xogta cidda dishay iyo sababta loo dilay ayaan idiin soo gudbin doonaa maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Khayre iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo ku kulmay magaalada Muqdisho xog cusub oo laga helay wada hadal u socda Axmed Madoobe iyo dawladda Kenya xildhibaanada baarlamaanka ee ka maqan dalka oo amar lagu siiyay in si degdeg ah dalka ugu soo laabtaan iyo arrimo xasaasi ah oo soo kordhay iyo saameyn noocee ah ayaa Somaliland ka soo gaaraysa xarigii gabdhihii Kanadiyaanka ahaa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay madaxweyne Xaaf iyo Ahlu Sunna iyadoo dhanka kalena Sheekh Shaakir oo balanta uga baxay madaxweynaha Galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay madaxweyne Xaaf iyo maamulka Ahlu Sunna xog aan goordhow helnay ayaa sheegaysa in kulan u dhaxeeyay madaxweyne Xaaf iyo xubnaha Ahlu Sunna ee ku biiray Galmudug oo isfaham waa ku dhamaaday iyadoo la isku qabtay doorashada Galmudug ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa shabakada wararka Soomaalida u sheegay in xubnaha Ahlu Sunna ee fadhigoodu yahay Dhuusamareeb ay mabda ahaan aqbaleen in doorashada Galmudug ay dhacdo bisha soo socota taas oo Xaaf uu aad uga soo horjeestay madaxweyne Xaaf ayaa in muddaha diidanaa doorashada Galmudug wuxuuna marar badan ku adkaystay in muddo xileedkiisa uu ka soo bilaabanayo markii ay isku biireen Galmudug iyo Ahlu Sunna taas oo macnaheedu yahay inay u hartay 3 sano oo kale Ahlu Sunna ayaa marar badan qabtay fikirkaas la mid ah hase yeeshee lama yaqaan waxa isbedelay hadda waxaana sidoo kale la ogeyn in dawladda federaalka ay kaalin ku leedahay isbedelka ku yimid Ahlu Sunna madaxweyne Xaaf ayaa meel cidlaha ku soo dhici doona haddii uu Ahlu Sunna ay garabkiisa ka baxdo maadaama goor horeba laga diidanaa magaalada Cadaado dhinaca kalena faahfaahin ayaa laga helayaa dil Muqdisho loogu geystay sargaal ka tirsanaa waaxda dambi baarista ee CID-da askari ka tirsan ciidamada booliiska ilaalada ka hayay control ku yaala nawaaxiga isgoyska dabka oo lagu baara gaadiidka aada dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ayaa gelinkii dambe shalay ku dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliya ninka la dilay oo dhalinyaro ahaa ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiwahaab Aadan wuxuuna ahaa madaxa baarista dambiyada ee saldhigga degmada Waaberi xilliga habeenkii ah waxaana xilliga la tooganayo uu watay gaari yar oo nooca raaxada ah si dhaba looma oga sababta rasmiga ee ka dambaysa dilka balse askar ka tirsan saldhigga Waaberi ayaa sheegay in marxuumka inta aan la dilin daqiiqado ka hor isbitaalka Daarushifa uu ka soo xiray 3 askari iyo gaari haariyar ah oo ay wateen kuwaas oo loo haystay rasaas xalay laga maqlay aaga wadada Makaal Mukarrama askariga dilka geysay ayaa la sheegay inuu goobtiisa ka baxsaday waxaana socdo baaritaan ay wada laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya iyadoo la faray inay heegan galaan ciidamada ku sugan degmooyinka Hodan Howlwadaag Waaberi iyo Xamar Jajab oo ka tirsan taliska qaybta bartamaha taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir Saada Cumar Xasan John ayaa hore u amray taliyaasha ku sugan kontaroolada ciidamada ay joogaan inay gacanta ku soo dhigaan askarigii wax dila ama goobtiisa lagu dilo haddii uu baxsad isku dayana haddii ay taasi dhici weydana uu xarig mutaysan doono sargaalka ugu sareeya baraha ciidamada ay wax ku baaraan maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Khayre iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo ku kulmay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo danjiraha cusub ee Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlange oo ku kulmay Muqdisho ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka Midowga Yurub iyo Soomaaliya iyo dardargelinta mashaariicda Midowga Yurub ay ka fulinayso Soomaaliya safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran waxaana u ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono dardargelinta mashaariicda ay dalka ka wadaan iyo xoojinta xiriirka laba geesoodka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa Midowga Yurub uga mahadceliyay taageerada ballaaran ee la garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed dhanka kalena ra'iisul wasaaraha ayaa gudoomiyay shir ay ka soo qayb galeen taliyaha booliiska saraakiil sare oo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo safiirka cusub ee Midowga Yurub kaas oo looga hadlayay horumarinta booliiska Soomaaliyeed Midowga Yurub ayaa Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ay ka mid tahay
tababarada ciidamada booliiska si sare loogu qaado awoodda iyo xirfadda sugidda amniga muwaadiniinta. Geesta kalena xog cusub ayaa laga helayaa wadahadal u socda Axmed Madoobe iyo dowladda Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay inay wadahadal ku aadan dhibaatooyinka ka taagan xadka Soomaaliya iyo Kenya ay la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dalka Kenya. Waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay uu tagay deegaano ka mid ah dalka Kenya oo xad la leh maamulka Jubbaland sida magaalada Mandheera iyo magaalooyin kale oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa sheegay in sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya oo uu kula kulmay magaalada Nairobi isla markaana uu ka dalbaday inay furaan xadka Soomaaliya iyo Kenya. Maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay soo afjari doonaan dhibaatooyinka ka taagan xadka labada dal isla markaana Kenya ay ka dalbadeen inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Xildhibaanada baarlamaanka ee ka maqan dalka ayaa si degdeg ah loo faray inay dalka dib ugu soo laabtaan kadib arrimo xasaasi ah oo soo kordhay. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shir gudoomiyay kulanka guddiga joogtada ee Golaha Shacabka. Kulanka ayaa lagu go'aamiyay in 15 bishan dib loo furo kulamada Golaha Shacabka. Xogayaha guud ee Golaha Shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa xildhibaanada dalka ka maqan ugu baaqay inay si degdeg ah ku soo laabtaan ka hor 15 bishan. Xildhibaano badan oo ka maqan dalka ayaa amar lagu siiyay inay dalka dib ugu soo laabtaan si loo sii ambaqaado kala fadhiga baarlamaanka oo hakad u galay bishii Ramadaan ee aynu ka soo gudubnay. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa horyaalo howlo muhiim ah oo la rabo inay muddo yar ku qabtaan, waxaana sidoo kale jira sharciyo muhiim oo laga rabo inay ansixiyaan. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa faray xildhibaanada inay ilaaliyaan waqtiyada shirarka la leeyahay isla markaana si wanaagsan u gutaan waajibaadka qaran ee saaran. Ugu dambeyntiina saameyn noocee ah ayaa Somaliland ka soo gaaraysa xarigii gabdhaha Kanadiyaanka. Maymuun Cabdi oo 28 sano jir ah iyo Kariim oo 24 sano jir ah oo haysta dhalashada dalka Canada ayaa maalmahan warkooda aad u dhex socda warbaahinta iyo bogagga arrimaha bulshada sida Facebook. Wararka hablahan oo sumcadda qaranka Somaliland aad uga xun ayaa ah in lagu xidhay Hargeysa iyadoo lagu eedeeyay markii hore inay maandooriye cabeen kadib markii ay tacaddi iyo iyadoo loo diiday waxay xuquuq lahaayeen oo dhan aan la siin si lama filaanana looga sii daayay xabsiga. Xukuumadda Somaliland ayaa ilaa hadda ka hadal sababta xarigan hablahan loogu geysay iyadoo ay muddo bil ah ku dhawaad warka xariga hablahan uu heysay warbaahinta iyo fagaarayaasha la isku dhaafsado xogaha ee social media. Dhab ahaantii waa waajib saaran xukuumadda Muuse Biixi inuu wax ka qabto tallaabooyinka subcad dilista ee Somaliland u ekaysiinaya meel lagu tacdiyo xuquuqda asaasiga ee muwaadiniinta, iyadoo aynu ognahay intan iyo intii uu xilka la wareegay madaxweynaha muddada kooban ee xilkiisa uga hadhsan tahay inay xabsiyo muteen dad dalkan u dhashay oo qaarkood markii muddo xabsiyada lagu hayay la iska sii daayay, qaar la musaafuriyay halka in badan oo kalena ay waqtigan xabsiyada ugu jiraan oo kaliya fikir ay cabireen. Tacadiyada xuquuqda ee ay xukuumadani ku kacaysa ayaa sababay in qaar ka mid ah dalalka Somaliland ka caawiya dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda ay ka fiirsadaan sidii ay ula sii shaqeyn lahaayeen Somaliland. Sida laga soo xigtay safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya arrimaha Soomaalida ee Nairobi uu soo hadal qaaday haddii xukuumadda Muuse Biixi ay wax ka bedeli weydo howlahan inay ku soo rogi doonaan xayiraad xagga socdaalka ah. Si kastaba xaalku ha noqdee waxaa xukuumadda looga fadhiyaa inay caddeeyaan sababta hablaha loo xiray. Haddii la waayo wax cad oo lagu xirayna waa in madaxweynuhu tallaabo ka qaadaa ciddii iyo xarigooda ka dambeysay si loo ilaaliyo sumcadda qaranka Somaliland uu ku leeyahay fagaarayaasha caalamiga, sidoo kalena ooda laga qaado maxaabiista ra'yigooda u xidhan oo dhan. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa nageynta. Fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan, sidoo kale qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan warbixinada iyo xogaha aynu halkan soo gelino. Waana mahadsantiin.